dowladdii Soomaaliya oo dhan caruurtoodii waxaan u soo dhigay Maxamed Siyaad Barre caruurtiisii waxaa ka mid ahaa diiriyo kale cureeja ama laxwas inantooda loola jiray muuno kul wanaagsan daawadayaal waxaan ahay Cabdikariim Mursal ku soo dhawaada barnaamijka sahanka nolosha oo maanta uu inoogu marti yahay Professor Maxamed Keyd aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka muddo dheerna macallin ka soo ahaa Soomaaliya iyo waliba Mareykanka isla markaana ka soo shaqeeyay warshadii sokorta ee Mareerey. Professor Maxamed Keyd ku soo dhawo Universal TV. aad iyo aad baad saaxiibo mahadsan tahay marka adiguna saas leeg ku soo dhawo wareysigeena waa tahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtiga aadna siisay waxaan jeclaan lahayn inaad nala wadaagtid noloshaadii hore halkii aad ku dhalatay iyo waxbarashadii berigii hore ee aad ku soo qaadatay deegaanadii Soomaaliya. horta anigu waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Qaryacawl oo u jirta 5 mayl magaalada Boorama sanadkii 1958 aabbahay wuxuu ahaa markaa ka tirsanaa ciidankii Somali Scout la oran jiray oo waqtigii Ingiriiskii cabaar waqtigii dagaalkii labaad ka bacdi ilaa 1948 markaa waxaan ku dhashay xerada militariga oo la yiraahdo Qaryacawl. waa tahay waxbarashadaadii iyo qaabkii aad u nooleed waagaas markaas ayaa la ii bixiyay magacan Keyd magaca يعني برجع هو ردتك أو حلو بحجري مجا صومالي كوة جهان حالد قف هذول شيء دو روب ده أي روبله هدي أي تايدو علاد يدقال شرو علاد مركا أنا جو حلي بحي بركا كيد وايو أباها يهو يدي مدة اسمه يدالين تيتنو مدة أيه اللي يسوي مركا سيدا أوجد باللي يقول بحي كيد وحلو بحي مركا لبا حالدود حاجة دقيقة كصومالي ده marka qoysku helo gabdho gadaal dambe ay wiil ka helaan wala loo keedinay ama marka reerku muddada hore aanu caruur yeelan oo gadaal dambe uu dhalo marka wiil dabeetana loo markaas asaas loogu bixiyaa keedaniga saas lagu bixiyay waxbarashadaydii waxaan ka bilaabay quraanka markii ugu horeysay magaalada Wajaale waxaan ka dhigtay ka bacdi waxa dhacay dagaalkii 64 oo Itoobiya iyo Soomaaliya 1964 dabeetana waxaan ka dhigtay magaalo la yiraahdo Cadaadle dabeetana waxaan ka dhigtay Burco waxaan markaa iskuulkii ka bilaabay Burco bariga waxay lahayd 3 iskuul mid la oran jiray Old School iyo iskuul la oran jiray Siida iyo iskuul gabdhaha markaa waxaa lanagu qoray iskuulka hore ee la oran jiray Old School waqtiga ma jirin qabyaaladii waxaa loo qaybin jiray 3 qaybood ardayda loo qoro iskuulka waxaa la oran jiray shacab oo dhinaca deganaa dhinaca kalena waxaa deganaa ciidan military ama xeradii military iyo xeradii biliiska marka annaga markii lanagu qoray iskuulka la yiraahdo Old Schoolka laba la noo qaybiyay ardaydii shacabka dhalinyaradii shacabka waxa lagu reebay iskuulka hore ee Old School oo ku dhex yaala xaafadooda annagana iskuul noo dhawaa militariga iyo biliiska ciyaalkoogii oo la oran jiray C halkaasaan ka bilaabay markaa ABCD waqtiga aan waxbarashada bilownay qiyaastii waa 65 waqtiga يعني وحلا قات حرنمدي 1960 5 سنة كدب 5 سنة كبعد نظامك waxbarasho jiray wuxuu ahaa dhinaca waqooyiga kii laga dhaxlay Ingiriiska dhinaca koonfurtana kii laga dhaxlay Talyaaniga marka nidaamka waxbarasho wuxuu ahaa waqooyiga oo Ingiriiska laga dhaxlay 3 sano oo dugsi hoose ah 4 sano oo dugsi sare ah dugsi dhexe iyo 4 sano oo dugsi sare 12 sano dhinacan koonfurtana waxay ahayd marka nidaamkii laga dhaxlay Talyaaniga 5 sano oo dugsi hoose ah 3 dugsi dhexe iyo 4 high school 12
soo waqooyiguna waa 11 sano dhinacii koonfureedna waxa ahayd markaa 12 sano aad iyo aad waxyaabaha ugu waaweyn oo caqabadaha oo markaa hor yaalay dowladdii cusbeed ama maamulkii cusbaa gaar ahaan waxbarashada waxayd sidii labadaa nidaam loo midayn lahaa ingiriiska iyo talyaaniga manhajyadoodii waayo ingiriisku nidaamkiisuna wuxuu ahaa iskuulka elementarygu carabi ingiriisigana lagu bilaabo fasalka labaad marka fasalka shanaad la gaadhana ingiriisi loo bedelayo while koonfurtana waxbarashada oo dhamma ahayd talyaani iyo carabiga oo alluqanaha loo baranayo markaa sidee loo mideeyaa ayay ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ka war laakiin tayada waxbarashada ee berigaas dalka ka jirtay tan ingiriiska iyo weliba tan talyaaniga sidee ahayd taya ahaan labada dhinac tee wanaagsanaa saadaasha xilligaas jirtay labada waxbarashaba runtii way fiicnaayeen oo marka loo eego wakhtiga waayo dadka beriga macallimiinta ahaa waxay ahaayeen dad aad mas-uul u ah oo ku dadaalaya inay tayada waxbarashada hagaajiyaan aad iyo aad macallimiinta iyo waalidka iyo ardayda waxaan kuwa si fiican u wada shaqaynaya marka runtii waxbarasho wanaagsan oo marka loo eego quality-ga fiican bay ahayd maamulkuna wuxuu ahaa ha ahaado yani dhaqaaluhu ha yaraado marka dhaqaala yaridaa waxay kaga adkaadeen inay la yimaadeen maamul wanaagsan soo tay ahaan runtii way fiicnayd marka labada dhinac tayada dhinacee wanaagsanaa is dhihi kartaa waagaas dhinacna wuxuu la socday nidaamkii ingiriiska nidaamna wuxuu la socday dhinacii talyaaniga marka xagga tayada waxaad moodaa inuu nidaamka ingiriisku waxoogay ka tayo wanaagsanaa maadaama luqadda ingiriisku ay ahay ka caansanayd luqaddii talyaaniga waa tahay haddii aan markaa dib kuuga celiyo berisamaadkii maxaad ka xusuusataa nidaamkii kacaanka iyo weliba horumarkii dalka ka jira waagaas kacaanka oo dhashay 1969 oo inqilaab ku yimi oo saraakiishii waddanka oo hogaaminayay jenaraal maxamed siyaad barre runtii waxay aad ugu dadaaleen inay isbeddel wanaagsan dhinacyo badan ka sameeyaan matalanba luqaddii af soomaaligii oo intay soomaali soo jirtay loo maaro waayo in la qoro oo soo martay marxalado badan oo ilaa 18 farood oo kala duwan la isku dayey oo ay noqotay inay suurtoobi weydey oo nidaamkii waxbarasho ee dugsiyada ka jirin oo noqday af qalaad in ardayda wax ku barato dadkii Soomaaliyeedna aanay afkoodii waxba ku baranayn waxay noqotay baahida ugu weyn ee la dareemayay marka waxay aad ugu guuleysteen waxyaabihii ugu horeeyay ee kamid ahaa wuxuu ahaa qoridda afka Soomaaliga oo 1972 loo qoray laguna dhawaaqay taasina ay keentay in aad loola dagaalamay wax akhris la'aantii iyo wax qoris la'aantii waxay guulaha ugu waaweyn ee la gaadhay ka war laakiin sidoo ahaa dareenka shacabka waagii af Soomaaliga la qoray isla markaana lagu dhawaaqay oo dadkii ay yaqiinsadeen in maanta wixii ka dambeeya ay haystaan luqad iyaga ay leeyihiin af carabina ay wax ku qori doonaan maalinta wixii ka dambeeya dareenka shacabku soo ahaa dareenka shacbigu yani waxay ahayd farxad ugu weyneed guul aan weligeed cidi gaadhin in la gaadhay in qof kastoo Soomaali ku farxay in shaqaalii dawladdii lagu amray in qof kasta afka barto in laga sameeyay barnaamijyo idaacadaha oo qof kastaaba barnaamijyada markaa afbarashada raaci jiray waxay noqotay markaa yani farxad ugu weyneed iyo guushii guul ugu weyneed oo iska dhaaf gudaha waddanka caalamka kale oo dhan ayaa maamulkii Soomaaliya ku taageeray guushaas ama taariikhda lama ilaawaanka kaasoo ka koob oo afkaas oo la qoray oo ah Laatiin ka koobnaa 22 xaraf 5 shaqal oo gaagaaban iyo 5 shaqal oo dhaadheer oo dad barbar dhigtana afka Soomaaligu wuxuu ahaa af qaniya oo afkaas oo yani marka adeegto xagga suugaanta
32 qaybood oo kala duwan suugaanta ama gabayga geeraarka buraanburka waa afka carabigu 16 nooc leeyahay af Soomaaligu waa afkii lagu turjubay diinta islaamka sida uu qoto dheer yahay marka waxa uu noqday runtii taariikh lama ilaawana maanta dhibaatooyinka ka jira Soomaaliyana haddaan bariga afka la qori lahayn waxa kaliya isku haya maanta waa afkii bariga la qoray aad iyo aad soo guusha ugu weyn anigu markaan xasuusto waxaan raadayay Ilaahu naxariisti jannasi dadkii u dadaalay in afka qoraan uu ugu horeeyo madaxweynaha waddanka Siyaad Barre Ilaahay naxariisti janno ka waraabiyo يعني وجوشي وجويني تاريخ الصومالي ولقينا الحسوس ناندون أدي أد كعن كهرمركي وجاري وحيابي وقبتي قيب كاهد قرستا أف صومالي أو صومالي بيبقى كوفانتو أف صومالي وحير هذا وتصح دقنك مركا واتاي هدي أنت أسألك هدي هالكا خير دح قلو يعني ويا دقنك لكن هذا الأمر هذا يكتو يعني السؤال هذا ورد عندي بقول نقطة يعني waxa wadanka laga sameeyay waxbarasho free dugsiga hoose ilaa jaamacad caalamka badanaa ma jirto oo aan deyn ahayn waliba aan deyn ahayn aad iyo aad oo ku jiro jaamacadda marka la soo gaaro chiefkii cuntadii sax waxa la sameeyay free education and free health care dhakhtarada oo dhan waxay lahayn bilaash waa dhakhtarada dawladda lahayd yani nolol qurux badan oo wanaagsan oo aan caalamka kale ka jirin iyo maciishada iyo nolosha oo ahayd mid raqiisa oo qof kasta ku noolaan karo waxa uu qaato iyo waliba barnaamijyadii uu ka shaqeyn jiray oo ahayd horumarinta reer miyiga markay noqoto afka Soomaaliga iyo waliba tii beeraha oo ahayd ma xusuusta hadda barnaamijyadii beeraha lagu horumarin jiray marka waxyaabo badan oo qabtay waxyaabo badan oo ay qabteen baa jira oo imka magaalada Xamarada arkaysa sida oo qasan waxay ahaan jirtay magaalooyinka ugu nadiifsan magaalada magaalooyinka ugu ammaan badan caalamka magaalooyinka qof kastoo meel degani sharciyad uu ku degan ma jirin qof bilaa sharci darro ku degan meel waxay jirtay kala dambeyn waxay jirtay xiriir fiican oo ka dhaxeeyay maamulkii ama dawladdii iyo shacabkii shacabkuna waxay dad islaam ah oo wanaagsan oo si wanaagsan u wada nool mana jirin wax ammaan darro ama rabshada dadkoo dhan way u hoggaansanayeen maamulkii jiray bariga waa tahay professor maxamed kayd aad u mahadsan tahay haddii aan dib ugu noqono taariikhdaadii iyo noloshaadii iyo waayahaadii hore ma xusuusataa shaqadii ugu horreysay ee aad dalka ka soo qabatay sideen kugu soo gashay anigu shaqadaydii ugu horreysay wuxuu ahaa macallin waxaan macallin ka soo noqday gobolladii dhexe oo gaar ahaan Dhuusamareeb markii dambana waxaan macallin ka noqday dugsigii sare ee 15 May xamar ku yaalay markaa dambe maadadan dhigi jiray waxa ahayd chemistry waxaan u dhigi jiray markaa dawladdii Soomaaliya oo dhan caruurtoodii waxaan u soo dhigay Maxamed Siyaad Barre caruurtiisii waxa ka mid ahaa diiriyo kale cureeja ama laxwas inantooda loo jiray muuno xuseen ismaaciil cala bokor inantiisii wiilo nin imika jooga Somaliland gudoomiyaha guurtida inantiisoo loo jiray Safiyo macnihii dawladdii oo dhan ayaan u dhigi jiray Cabdiraxmaan muxuu ahaa waxaa ka mid ahaa jaamac yare wiilo janankii ciidamada ama wasiirka muxuu ahaa ammaanka waqtiga oo la odhan jiray inankiisa Muxyidiin macnihii maamul dawladda oo dhan ciyaalkoogii marka inaga dhaqankeenu bariga Soomaaliya wuxuu ahaa waa la isku dhex jiray yani nolosheenu ma ahayn oo soo inay taajirkii madaxdii kii faqiirka ahaa kii dhexe kii beecmushirka kulli hal isku oo wax wada cuna isku khalaas yani aan lahayn dabaqado kala sareeya marka iskuul aad wanaagsan buu ahaa sorry marka maxay kaaga dhigan tahay dad madax sarsare ah oo waliba qaarkood ilmihi ay dhaleen xilal sarsare soo qabtay inaad macallin u noqoto maxay kaaga dhigan tahay intaas waxa ay ahayd sharaf gooniya sharaf dheeraada waayo
macallimiinta ka dhigaysa iskuullada waxay ahaan jireen macallimiin xula oo intaan la soo qalin jabin inay soo xushaan oo ay keenaan waxay noo ahayd annagana markaa mas-uuliyad dheeraada oo madaxdii waddanka ugu sarreysay in lanagu aaminay inaan caruurtoodii tababarno inaan annaguna markaa u hagar bixi jirnay iskuulkaasi wuxuu lahaa laab ama laab chemistry aad u wanaagsan waxaana ku dadaali jirnay markaa inaanu si fiican uga hagar baxno oo aanu xilkiga gudano marka sharaf gooniya iyo tixgelin iyo dhiirigelin bay noo ahayd dheeraada sidoo kale waxaa igu maqaal ah inaad ahayd asaasihii public health ama kuliyadda public health ee jaamacadda Camuud marka sidee kugu soo rogashay arrintaas maxaase kugu dhiirigeliyay baahida taagneed waagaas maxay ahayd macnihii waxa weeye 2012 ayaan tegey Boorama marka jaamacadda Camuud kuliyadda muxuu ahaa College of Health Science oo ahaa 5 kuliyadood ayaa waxaa la damcayn lagu daro kuliyaddii lixaad marka 5 jiray waxaa medicine dentistry nursing pharmacy iyo lab dabeetana waxaa la damcay marka in qaybtaa lagu daro qaybtaas maamulkii jaamacaddu aniga la xil saaray inaan isku dubarido oo jaamacadda ku adkaatay in la hirgeliyo markii la xil saaray waxaan ku dadaalnay inaan suurto gelino 2012 baan ku dhawaaqnay markaan kuliyadda ku dareen isla markiiba waxa soo dalbaday 120 arday aad loogu baahnaa 120 arday markii aan aragnay jira application-koogii inagu adkaatay inaan qaadano 120 su'aashii ku xigtay waa in noqotay sidee maxaynu yeelnaa inoo tala waxaanu go'aansanay markaa inaanu 40 ugu sarreeya qaadano marka araajidii waxaanu ku celinay qaybtii jaamacadda waxaa la soo xulay marka 40kii ugu sarreeyay oo kaalimis hore oo ugu sarreeyay darajada ugu sarreeya haysta dabeetana waxaanu yeelnay markaa aan yeelnay maadaama ay sanad soo dhammaysteen oo freshmankii jaamacadda haddana takhasuskii bilaabayaan inaan 3 sano oo takhasusa siino caafimaadku halkaa in yar haddaan ku daro waa 2 qaybood waa gacanta labadeeda dhinac caafimaadku waa ka hortag marka hore waxa weeyaan qofku markuu xanuunsado in la daweeyo dhakhtarkii markuu qofku xanuunsado inuu daweeyo dawadii in la siiyo in nursingii u ilaaliyo dawadiisu cunayo qolada farmashiisku dawasiintii iyo macluumaadkeygii laabku inuu dhigagii eego markaa waxa dhinaa oo loo baahnaa qaybtii caafimaadka guud ama public health oo ah ka hortagga cudurrada iyo ilaalinta ama dabridda cudurrada ama dhimista halista cudurrada marka waxay qayb aad loogu baahan yahay runtii dadaal badan baan u sameynay waxaan islaahnay inaan ku khasaarin arrinkaas marka si wanaagsan baan ugu guuleysanay inay maxay ahayd marka caqabadihii ugu waaweynaa idinka hortaagnaa ama xilliga aasaaska kuliyaddaas idinka hor yimid dhibaatooyinkii ugu horreeyay waxay ahayd waa qayb cusub oo hadda la bilaabayo ma jiraan macallimiin ma laha curriculum dhaqaale loo qoondeeyey oo loogu talagalay oo hawsha lagu fuliyaa ma jirin yacni waxaanu ku dadaalnay markaa iyadoo xaaladahaasi jiraan haddana inaanu ku guulaysano oonu ka baxno arrinka waxaan yeelay markaa waxaan dejiyey curriculumkii semesterkii ugu horreeyey oo 4 kooras ka kooban midna anigu dhigo 3 kooras ee kalena waxaan u raadiyey markaa macallimiin aan ka soo xushay oo ka soo baxay jaamacadaha Ethiopia oo ka ugu yari master ahaa marka yani dadaalka badan oo la nimid wuxuu noo suurtageliyey inaanu 4 kooras ugu horreeyay bilowno waxa kale oo go'aansanay inaanu bilowno qayb master si aanu macallimiin u diyaarino wasla kuliyadda si ay barito uga dhigaan jaamacadda oo looga kaaftoomo baahida macallimo masterkiina yani si waanu ka ag bilownay dabeetana dhinacana waxa ka soo baxay macallimiintii masterka oo ina kuwan u dhigaana dhinacana inay ka soo baxaan
BS si iyaguna berrito baahidii mujtamaca xagga caafimaadka guud u daboolaan. marka macallimiintii berigaas jaamacadda dhammaantood Soomaali ma ahayn masjid ajaaniba ku jiray ajaaniba ku jirtay okay wadamada waanu ka soo qaadanay Ethiopia waxa ku jiray macallimiin aanu ka soo qaadanay Kenya carabta ka war wadamada Masar oo kale may yani qaybaha kale caafimaadka ha laakiin public health ka waxaan ka soo qaadanay Ethiopia iyo muxuu ahaa waa tahay professor intaas hadda ugu soo gudubna qaybi waxbarashada inkastoo noloshaada inteeda badan ba aad waxbarashada ku dhex jirtay oo qaybaha dambena aan kaga hadli doono mar kale waxaad ka soo shaqaysay warshadii sokorta ee Marerey bal maxaad ka xusuustaa waayahaas warshadii sonkorta Marerey waxaan ku beeray November 1982 warshadu haddii yarkaasi iyo warbixin waxaa la aasaasay 1977 waxa qarashkeegu ahaa 201 milyan waxa bixiyay Kuwait Sacuudiga intii kalena waxa ku daratay dawladii Soomaaliya 201 milyan oo dollar oo $1 ujeedada mashruucu labo ahaa kow inuu shaqo la'aanta yareeyo labo inuu baajiyo lacagta adag ee inuu ugu baahanayn suuq ku soo iibsano mashruuca marka aan ku biiray waxa maamulayay company la yiraahdo BAI oo Ingiriis ah oo Bucharest la yiraahdo ama Bucharest loo oran jiray waxaan u qaybsanaa markaa mashruucaas 4 qaybood qayb beeraha oo qasabkii beerta oo 8,000 oo hektar oo qasaba ayaa la beeray warshadii oo markaa qasabka farsamaysa iyo qayb maamula iyo qayb kale oo xisaabaad 4 qaybood kaalintaada maxay tahay marka kaalinteedu anigu waxaan madax ka ahaa marka oo la tababaray wax soo saarka waxaan noqday marka hore production superintendent designate wax loo yaqaano oo ku xigeen qaybta wax soo saarka marka aniga shaqadeedu waxay ahayd qasab ilaa sonkor chemical ayana chemistry marka inaan farsameeyo oo qasabkii inaanu toojino dheecaan u bedelo dheecaanka marka inaan biyaha ka saarno inaan ka abuurno crystalski inaan sonkortii iyo molasses soo haray kala saarno inaan sonkortii jawaano halka dhigno marka shaqadeedu waxay ahayd wax soo saarid qasab ilaa sonkor markaan fiirino marka shaqaalaha guud ee warshadaas ka shaqeynayay imise ahaayeen imisa Soomaali ahayd imisa ajnabi ahayd dad ajnabi ma ku jireen ha macnihii warshada waxa joogay factory manager ninka maamulaya general manager ka maamulaya nimanka madaxka ah beeraha warshada qaybaha engineering inta madaxda ka ah niman kale oo khubara marka oo inta badan ahaa Ingiriis ayaana la joogay khubaradaas waxaanu ku dabari jirnay laba arrimood macnii qasabka aan sonkorta aan soo saarno waxa byproducts uu soo bixi jiray molasses marka molasseska waxaan u iib geyn jirnay dibadda waxaan laga soo gali jiray macnii sonkortii markaad abuurto oo samayso waxa soo haraya sonkortii iyo dheecaan isku jira marka sonkorta iyo dheecaankaas aanu kala saarnaa oo sonkortiina gooni wixii muud ama dheecaanna gooni oo kaas aanu raacno marka molasses kaas marka dibadda aanu iib geyn jirnay oo laga sameeyo khamriga iyo caagaga iyo waxyaabo marka dibadda markaanu iib geyno waxa naga soo gali jiray ilaa $5 milyan oo dollar taas waxay dabooli jirtay sanadkii baahida khubradana la joogta iyo spare part-ka aanu soo iibsanayn shaqaalaha warshadu guud ahaan mashruuca sonkorta Marerey wuxuu ahaa 2,000 oo joogto ah shaqaalaha maalin goosto marka lagu daro xilliyada qaarna 5,000 ilaa 7,000 ayaa shaqaaluhu gaari jiray warshada noocaas ah faa'iido intee la eg ayuu u leeyahay dalka waagaas warshadaasi faa'iido xoog leh u lahayd oo tusaale ahaan haddii aan soo qaato 1986 wasaaradda maaliyadda dakhligeegu wuxuu ahaa 6 bilyan oo shilin Soomaaliya mashruuca sonkorta Marerey wuxuu wasaaradda maaliyadda siin jiray 1 bilyan waa 6 meelood marka loo qaybiyo meelahan taasina waxay ku timid
kiintaalkii inta aanu ku soo saarno annagu oonu ku iibinayno ayaa waxaanu ku dari jirnay 60% cashuur ah oo dawladdu leedahay marka inta aanu ku iibinaynay iyo 60% lagu daray marka dadkii sonkorta qaadanayay ayaanu ka qaadi jirnay intaas dabeetana wasaaradda maaliyadda qaybta cashuuraadka bariga ayaa xisaabsan jirtay dabeetana lacagta aanu siin jirnay marka wuxuu ahaa mashruuc halbowle u ah dhaqaalaha waddanka dhinacyo badan wadamada sokortaas loo dhoofin jiray maxaa ka xusuustaa meelna looma dhoofin jirin waddanka gudihiisa lagu isticmaali jiray laakiin inaga xadkeennaa furnaa Kenya iyo Ethiopia marka halkaasna way ka geli jirtay waa tahay professor intaas markaan ugu soo gudubno arrimihii warshadii sokorta ee Marerey maanta Mareykan aad joogtaa oo muddo dheer aad ku nooleedo waliba macallin aad ka noqotay sidee kugu soo rogashay in Mareykanka aad macallin ka noqoto maxaase bari jirta ardayda Mareykanka runtii markaan imi anoo jooga California ayaa waxaan tegay jaamacadan xiriir la lahaa oo Soomaaliya noogu iman jirtay oo la yiraahdo Fresno State University jaamacadii baan tegay markii maamulkii jaamacadda aan is aragnay oo markaa ay eegeen transcript-kaygii iyo aqoontii iyo wixii aan soo bartay waxay jaamacaddii go'aansatay markaa in la ii dalbo laysanka macalinimada Mareykanka oo ay la xiriiraan commissionka California ee laysamada bixiya iyagii baa warqad qoray dabeetana commissionkii California waxay go'aansadeen markaa in la isiiyo laysan oo aan dhigo maadada chemistry halkaas markaa laysankii ugu horeeyay ka qaatay marka muddo ayaan ka ahaa California macallin jaamacadaha ma wax ka dhigi jirtay mise waxaan ka dhigay oo ka bilaabay high school waxaan ka dhigay San Diego State University oo aan professor la bixin jiray waxaan ka dhigay college ku yaala Seattle Southern College marka halkaasaan ka galay soo intii aan joogay Mareykanka badankaygaba wuxuun baan dhigay marka gaar ahaan chemistry iyo environmental science maxaad ka baratay marka muddadii aad macallinka ka ahayd Mareykanka muddadii aan macallinka ka ahaa Mareykanka waxbarashadii Soomaaliya iyo halkan yani nidaamyo aad u kala duwan caqabadaha ugu horeeya ama waxyaabaha ugu horeeya kala kulana waxa ahayd arday yani nidaamkii Mareykanka oo aan markiiba aragnay ardaydii Soomaaliyeed oo qaxootiya oo aan nidaam waxbarasho aan qaarkood soo marin siday ula qabsan lahaayeen oo Mareykanka waxa ay ku xidhan tahay waxbarashadiisu da ilmo 18 jirkii markuu yimaado ma la 19 jirkii waa inuu 19 jirka waxbarasho la gala marka yani waxaan dareenay kala duwanaansho badan waxaan dareenay arrimo badan oo ay aad ugu kala duwan yihiin inuu farqi weyn badan jira dareentay inuu farqi weyn aad jiro marka waxaan ku dadaalnay in anaguna aanu la qabsano nidaamkan cusub ardaydiina aanu ku dadaalno sidii hadafkooda waxbarasho ay ugu guuleysan lahaayeen marka dadaal badan iyo waxaanu muujinay runtii inaan aad u fahmno nidaamkan marka si guul aan u dhalino maxaa sababa marka inaad macallin ahaato ilaa retired aad ka noqoto shaqada aad ka fariisto ilaa waagaas aad soo sheegtay maxay tahay waxa kalifay macni macallimadu sideedaba waa sharaf waa shaqo ixtiraam leh waa shaqo haddii xirfadeeda aad taqaano inay kuu suurtoobayso inaad sii wado oo aanad ka xiiso goynin waayo waxay u baahan tahay inaad isu kalsoon tahay inaad subject matterkii taqaano inaad taqaano qaabka wax loo gudbiyo ardaydii waxaad ka helaysaa markaa ixtiraam taasi waxay keenaysaa inaad sii jeclaatood sii wado in yaroo sheekaada halkaa kugu daro waxaa la yidhi nin professor xaaskiisa ixtiraami weydi dabeetana wuxuu ku yidhi waxaan kuu geynayaa bal hadda sida dadka kale ixtiraamo jaamacaddii buu geeyey ardaydii buu lecturekii u bilaabay ardaydii aad bay u jeclaysan lecturekiisii laakiin markuu ka soo baxay wuxuu ku yidhi bal hadda ka waran ardaydu say ixtiraamaysa waxay ku tidhi waxaan kuu arkayay nin waalan oo dad miyir qaba ku dhex jira adigunba hadlaay marka macalimadu waa shaqo aad u qurux badan oo wanaagsan
macallinkuna ku faraxsan ardayna ku faraxsan marka way shaqo macaan oo runtii wanaagsan oo ixtiraam badan markaad Mareykan timid Soomaaliya ka timid oo dal dhaqan ahaan iyo nolol ahaanba aad ugu duwan Mareykanka sidee kugu soo gashay nolosha Mareykanka dhaqanka iyo weliba la qabsiga dalkan Mareykanka horta halkan waa meel yani dad fara badan oo noocyo kala duwan oo dhaqamo kala duwan leh ay jiraan cid kastoo Mareykanka joogtaana qaarkood badankoodu waxay leeyihiin laba dhaqan bicultural oo markay gurigooda joogaana dhaqankoodii bay ku dhaqmaan sida dhaqan Soomaaligii dhar Soomaaliga la xidho cunto Soomaaliga la cuno marka suuqa la tagana dhaqankii ilaalinta dhaqankii Mareykanka oo loo yaqaan acculturation inaad ilaaliso oo marka hore soo laga yaabo waxyaabaha qaar inaad yara diido qaar kugu cuslaadaan bilowga hore laakiin aakhirka waad la qabsanaysaa oo markaad Mareykanka la joogtana waxaad ilaalinaysaa caadadoodii iyo dhaqankoodii markaad muslimka iyo Soomaalida la joogtana waxaad ilaalinaysaa dhaqankoodii waxay noqonaysaa markaa ku kala cad oo ku kala suntan ugu dambeyntii professore maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd dhalinyarada mustaqbalka iyo kuwa hadda jooga ee raba inay noqdaan macallimiin ama hogaamiyaal maxay tahay talada ka imaanaysa halkan jooga mise Soomaaliya halkanba waa su'aal aad u da'weyn waa su'aal adag horta situationka ama marxaladda Soomaaliya Soomaalida waxay dhahdaa waa dad gooba dad sharaf badan dad qiimo badan dhinaca kalena waa dad qaraar iyo macaan badan leh oo meel ku wada yaala waa wadan meel ku yaala istiraatiijiya khayraadka ugu badan nimcooyinka ugu badan leh waa wadan haddana reer iyo qabyaaladii goobaysi dhibaatada halkan jirta aad bay u badan tahay oo su'aal kuma soo koobi karno laakiin masal ahaan waxaan odhan lahaa inan baa guursataa la yidhao carruur bay dhashay nin wanaagsan oo iyada iyo carruurtaba daryeelaa qabay inantii si lama filaana ninkii waxa ku yimi geeri iyadoo geeridaasi u taalo ayaa halkana waxa u yaalla inantii nin laga roon yahay oo inuu dumaalo ah oo ninkan walaalkiya oo aan markaa kaalintaa ubadka u baahan yahay kaalinteeda aan ka soo bixi karayn inantii waxay ku noqotay murugo geerida iyo ninkan sugay xaaladda Soomaaliya halkaasi taaganta waxaan uga jeedaa markaa haddii inantaas ay tahay wadankii ubadkaasina yahay dadkii Soomaaliyeed siyaad bare ka bacdi ama kacaankii ka bacdi cid dar yeesho isku hayso wadankii maynaan helin ama lama helin an alla intii madaxweyne ka dambeysay timid waa ragaa la dhaliilsan yahay ee aan qaar badan ku habboonayn ama aan dhibtii jirtay halkeega haynin shacbigii Soomaaliyeed oo loo baahnaa inuu isagu la yimaadana aan shacbigii la iman marka haddaad dhinaca Soomaaliya ka hadashana arrimahaasaa yaallo oo war sidee dhibtan haysata Soomaali uga baxda waa arrin waafiyoo jira intii qaxootiyowdayna waxay la kulmeen dhaqamo qalaad afaf qalaad iyo dhibaatooyin hor leh oo qaarkood dhibaatadii haysatay ka sii badan inkasta oo jiilka wax ku bartay dibaddu ay aad u wanaagsan yihiin oo ay heleen waxbarasho oo dhaqaale heleen oo nolol wanaagsan heleen laakiin haddana waxaad moodaa in identity-googa uu lunsan yahay oo maadaama aan dhulkoogii oo aanu weli fayoobeyn inay wax badan dareemayaan tala ahaan markaa waxay habboon tahay in Soomaalida gudaha ay u taallo su'aashaas war sidee baynu wadankii dadka iskugu haynaa sidee baynu u dooranaa maamul wanaagsan sidee baynu u wada jirnaa oo iskaga deynaa qabyaaladda inta halkan joogtana sidee baynu qaybsanaanta reer uga baxnaa sidee baa la isugu duubnaadaa sidee baa caqliga aqoonta waa aragnimada laga dhaxlay halkan wadankii dib loogu celiya si horumar loo dhaliyo oo rajo weyn ka jirto haddii markaa
gudaha inta joogta iyo inta dibaddu ay sameeyaan iskaashi ku dadaalaan arrimaha hadda jira sidii wadajir loo xalin lahaa waxaa hubaala in dhibtayna haysata aynu ka bixi lahayn marka waxaan ku gubaabin lahaa in gobonimadii iyo sharaftii dib loo soo celiyo qabyaaladan iyo waxyaabahayna qaybiye la iska joojiyo madax wanaagsan la doorto oo aan ku salaysnayn reernimo dad dhaqan leh diin leh sharaf leh tusaale wanaagsana waxaan odhan lahaa markaa cid kasta ha dhaliishee siyaad bare dabadii maamul maynaan arag nin leh qualitieskii sidaasoo kale wariyaa qualitieskii ninkaasoo kale wata oo dhibta maanta haysata ka bixi kara dadku inay ku dadaalaan yaan la eegin dhaliilaha laakiin ha la eego faa'iidadii badnayd ee kacaankii keenay ee dowladihii hore keeneen waxaan jeclaan lahaa markaa in Soomaali isku timaado oo danahooga ay ka wada hadlaan arrin kastoo khilaaf u jirana wada hadal wada xaajood wada fadhi iyo isku tanaasul la sameeyo aad iyo aad umahadsan tahay Professor Keyd maasha Allah waa tahay daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkan oo aan ku wareysanay Professor Maxamed Keyd oo muddo dheer macallin ka soo ahaa Soomaaliya iyo waliba dalka Mareykanka isla markaana ka soo shaqeeyay warshadii caanka ahayd ee sokorta ee Marerey ee ku taal gudaha Soomaaliya isla markaana shaqaale badan ay ka shaqeyn jireen intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdikariin Mursal Faarax intaan mar kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh